koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan war kalamaanay garow waan joognaa xaalkuna waa nabad madaxweyne dani madaxdii qarankana waan u jeedaaye balaana airboodka aadoo futbal wax ka soo dhawaynaya boowe xageed ka socotaa adigu ari waftiga hirshabeellaan ka mid ah boowe adiguna galmudug boowe soo dhawow adiguna xageed ka timid baydhow jinaaku kuway wafdiga koonfur galbeeda ka mid ahaa adna mudane aga war wafdiga jubbaland baanu ka mid nahay war intiina waan idiin gartaye bal aabay wafdigii banaadir war banaadir madaxda qarankaa matalaysa war madaxda qaranka gobol keliya ma matalaan oo dalka oo dhan madax u yihiin gobolka banaadir maqaam ma leh war heedha maalin walba halkanaad ka buuqdaane rabadaanna way soo dhowdee kala yeeshaa meesha ka cabo sahaysii qaata waan ku salaamay Faadumo Soonqaad war Soonqaad lama gaarin garow wara shirkii baa ka furmaya madaxda qarankaana ka qayb galaysa banaadir intaan ka hayna maamul goboleedyadii waa joogan war madaxweyne xaaf shirka ma u soo lugay mas diyaarada u soo raacay war madaxda uga fil ma lugeeyaane Boeing 737 bay raacaan war diyaaradda sheegaysa waa tii la mamnuucay shacab iyo madax midna ma raacaan war nimiyo ana may baliyaabana geeda tiriyaan intii isin artaan yaaq ma inka tabtan inta badhonya mada isaaqo aniga ku fahmay lafta gareena waa tagay garow shirkuna ka qayb galaya raalli aha war saas maahan banaadirna waa shafkii qaranku ku fadhiyay umana go'do qolo iska xanaaqda hadba war gorayanka hadlayna ma geelanka hadlayna maxaa keena banaadir meesha anigu nimayo waxaan la yaabanahay madaxda garow u socotoon gaalkacyo sii maray war madaxdu gaalkacyo mari maayaan waxaana looga leexday raggii kubsada caasho Ilyaas kadibna dilay war waxaan idin weydiiyay hablaha maxaa loo kufsanaya ilaa raggay u joogaane warkiiskii caasho maanta maxkamadda garow waa fadhiisatay 10 nin ayaana la horgeeyay mid kamid ah waxa 32 jir waxaana maanta lagu ballamay in kiiska dib loo dhigo oo sabti dambe la fadhiisto war nimayaanu waxaan la yaabanahay kiiskaani racfaan ma gaarine sabti maxaa loogu tuuriyeenaya ama sida looga bixi rabaa war miyaadan maqal dood cadaalada dadka maqashii sharcigeena dumi qoyskii caayisha ka dhalatay gaalkacyo waa isaga carareen ma ka wadaa war annimiyow may baliyaabana 30 sano iwal dheer lan jiro kufsili ku gobadii lileey ilaahow eebay waa eebaytay war mada isaaqo 90 waa yaabantaadi war ninka albiter ma haysto waa iska socdaa war kiiska caayishaan ku soo xasuustay waxa la yiri bukaankaba hadii caafimaad loola soo cararo cilmi niman u yeeshiya hadii culummo loo geeyo cudurka la baaraa intaan daawo la cunsiine shay baaristayaal la carbiyaa loo celceliyay calaamadaha goortay helaan ama sacaynkiisa ay kala caddahay baa shakhsiga la cirbadeeyay haddii jacayl cilmigii lagu bedelo cirib go' weeyaane cashaqu inuu cadow yahaan cidina moogayne ciladiisa eebow maxaa nagu canaabeeyey war nimanta irbadalo duriruntaw dhahaanga laka gaadi maxkamada la saari geeka kaalay been badnida cirbadaha jacaylku goormay soo baxeen war shibnoo dheer gaalka iyo dooq ma leeha maday saqow muxtaar reewa mar dhawaal soo dayna guddiyaa loo saaray hadda ogolka jooji war waxaa la yaabaa inuusan ku fahmin anaa u sheegaye wadaadkinkinkooye magaashayna aeroboor ma ka qoradaasan carfaanay haddii baasha halkaan sigaarad gaariga waa ka dhacaaniga waradhaa war ma haysaane sharcigii doorashooyinka maalin dhawood golaha wasiiradu ansixiyeen waxaa ka soo hor jeestay maamul goboleedyada qaarkood iyo xisbiyada waana ka digeen weliba buda ingadartoan waanahay inkarugutoy looma dhama wallaahi la yeelayni billaahi la yeelayn isansiinka ogna war waa iska hadlaydaane maanta dad masaakiina maxas agteeda lagu laayay dad shacaba oo geediya oo iska roob raacaya ayay burcad wadada u gashay 6 qofna waa dileen 4 kalena waa dhaawaceen waxaana la yiri waa ana qabiil oo hadda roobkii xitaa misbaara loo dhiganaya abaan caris la yiraahdo waxa uu yiri nin bajaajka haysta kolkuu marayo laamiga dadka wuxuu u fiirshaa bal inay kireystaan anna waxaan heblaayo hadbaa shaqaagii ula qayla dhaansha bal inaad yeeshee markaad seexo damacdaba waxaan ku miskoolshaa jaceylkaaga weeye haddii aan ku necbahay wicitaan badaayo kuma soo falaasheen 6 saac habeenkii online inaad tahay amba waan dareemay horta yaad la hadashaa shaki baa ay taabto musuq maasuq weeye xiriirkaagu badan ama siyaasi baa tahay
warkaasuu sugaa intiisu uungna oogi sababtoo jecellay bishaagada ama masiir deeri waraada warkaaga buda aan ka fahmi jire ninkaanu maanta waa gabiye ka leex war muxuu gabiyaa jacaylkii buu masayr ka bilaabay war qof la jecel yahay loo masayra waryaalahan maanta warkiinaad nagu waasheene balan xaggayga wax idinku dare maalintii dhawey taliyayaashii la laayay maanta waxa la sheegayaa in la soo qabtay qacan ku dhiglayaasha qaar ka mid ah waxaana hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyayaashii jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland warya gowdhanka jamhuuriyadda waala jiri kowdhe tan barakaysan baka dartay oo baalgatan war Soomaaliland war kama haysaane xaaladii degdeg ah ee gobolka Sanaag la galshay xildhibaanadu markay ka hor yimaadeen Muuse Biixi wuxuu yiri fasax baa tiiri la soo qaat war Soomaaliland ma ahane waa Kismaayo meesha maanta la yiri wixii ma Soomaaliya wala soo qabana Kismaayo maanta laga soomaya war rabayo cunug ciyaalka xaafadda kamida ayaa sheekh su'aal weydiiyay wuxuu yiri sheekhow Ramadaanka maalinta u horeysa iyo maalinta u dambaysa haddaan sooma ka waran inta kale tana dhaxda gelsho war marka dagaal ka dhaca la yiri maxaa warkaysan war annagu dagaalkaas ma aanan maqalamaada ku jiray war yaaya xigmadna ma sheegtaan dadkana waa ku qaylisaane naga taga maana ilaahay hadda maana ilaahay war